المستشفى عمر الواعظي متاع نور مكان الواعظي الشيخ قريوني الوعظي عند الإمام الحسن شيخ محمود الواعظي عبد الخاشي عبد الله علي خليل قليل علي خليل قليل علي خليل قليل حسن أبشر فاس محمد سعد عثمان جواري عبد الحاشي عبد الله محمد سعد عثمان جواري حسن أبشر فاس عبد الحاشي عبد الله محمد عثمان جواري 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 جواري محمد عثمان جواري محمد عثمان جواري محمد عثمان جواري محمد عثمان جواري علي خليل قليل محمد عثمان جواري علي خليل قليل
waraaqaha waan dhameynay waan tirinay sida lambarada loo kala helay ayaan idiin sheegaynaa jawaari maxamed xasan jawaari wuxuu helay 119 علي خليل قلب المبارك الزواتر يتضوى حسن عبد حاشي ما حسن أبشر وقوهلي ما عبد حاشي وقوهلي صدح يلا حسن أبشر وقوهلي الشن صدق وقوهلي الثمن تردك ضدك موضي وحاوي بقول لو بقول يصدر يا أخي أيوة لو بقول يسوي اللحى يا والله موضي لو بقول يصدر يأفر باب موضي شرعي ومركب كولي شرعي وكولي مركب الصلح هدي مركي برلمانك أبو حال والله بقول يتدواتا يشنع وإلا هلا بقول كيما كنتم بلاس 1 سيرة مركز اللوبة يحاول بقول يصدن يستقال إلا هنا عندها شيء ما قلت بقول يصدن يستقال دستور كساء قرية مركز وحالقة ومارما إلا سبعينه سكن فعل ورقل ما أفرت أقوى رئيسة هي الله سبعينه ينقى سكن هذه عندنا البوليس أقول يا شيء جدا هذا بس كتر سوسن لا كدار مركا لوادي سوهر أو سطح سوهر يا نوالنا أصلاً قاعد تتاجه أيه خسرة يحنا برلمان كصومالية جودان أما عذا يسيان أما ينيسين مثل اللبات وعن عدينا يا oo aan sheegayaa inaan ka tanaasulay oo aanan gelaynin doorasho labaad codkaygana waxaan ku biiriyay jawaari السلام عليكم أنا سلقيستنو وارفضنا نسرق السنة شرف موجية الله أمسه ولا يغمدنا إياه الريف عن بامباشا كدعضي ولينا ينوصو عطا أن نقلنا حلقاس مسؤولنا أن نقلنا أرنك ماشا طالة وحوية عضبا دعي shirku markuu noo bilaabmay waxaa la yidhi 228 codwey baarlimaan yaa jooga oo fadhiya oo codaynaya 228 waxaa dhacday in 234 cod la dhiibay laba codna ay noqdeen khalad waa 236 tiradanu isma qabanayso si fiican bay hawshu inoogu socotaa roundka labaad baynu u gudbaynaa serious aan noqonno ciddii siinaysa mudane jawaari codka ha ku siiso halkan wax durbaan loo tumayaan ma jirto second roundkii baan u fadlan ra'yi dhiib maaha bahashana ma dimuqraadiye iyo sharci baynu ku soconaynaa ama tallaabadii ugu horreysay baarlamaanku qaadayay yaynu khalad ku bilaabaynaa saacad aan adkaysano ama saacad iyo badh aanu gudubna roundka labaad qaranka Soomaaliyeed guddiga doorashada xubnaha beesha caalamka saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
salaan kadib waxaan si ballaaran ugu mahadcelinayaa baarlamaanka qaranka iyo guddiga doorashada iyo kasoo qaybgalayaasha intaba tartan waa tartan macnihiisu waxa weeye in la tartamo haddii la tartamana cid baad guulaysata cidna waa laga guulaystaa waxaa sharaf ii ah inaan ku kalsoonahay codadka aan helay waxaan ku kalsoonahay in aan diyaar u ahay in aanan daal badan saaxiibaday sii gelinin aan ka haro doorashada xubnaha golaha baarlamaanka ee codkooda i siiyey waxaan ka codsanayaa inay codadka halka badan ku biiriyaan si xaaladdu ay noogu sahlanaato aad baa u mahadsantihin ay siiyeen waxaan idiin sheegayaa waa sharcigu siduu dhigayo laba oday hadday tanaasushay kii saddexaad baan soo galay haddaan soo galay waxaan leeyahay isagoo guddoomiyaha iyo gudduguba ay mahadsan yihiin waa tanaasulay aniguna xoogaagina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u malaynayaa inayna salcadayga dimuqraadiyadda iyo in bahasha laga gungaadho ayna weli u baran siyaalo badan baadna u moodaa in shucuurkiina haddii la arko aad leedihiin warwadaadka isna aan u ducayne uuna fasaxo daba ducadiina halhan cad waxaan jeclaan lahaa baldulqaadka iyo adkaysiga iyo hadday xitaa u muuqato dagaal aan u baahnayn in la sii wado dimuqraadiyaddu taasay u baahan tahay sal adeegkeeda iyo dhabar adeeggeeda aan yeelanno waxaan rabaa saaxiibkay maxamed jawaari inaan u hambalyeeyo annaga uu noo gudaeyay hawshii runtii waxaan lahayn mar uuna arrintan jeeda ka dhameeya haddana uu noo gudaeyey mahad iyo bogaadi baan u celinaynaa saaxiibkano waxaan kaloo hambalyeelayaa xildhibaan guddoomiyaha cusub maxamed sheekh cusmaan jawaana kadib oo saaxiibadii ay ka tanaaduleen qarankii ku guulaystay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ummadda Soomaaliya. aniga sharaf baa ii tahay inay bedelo maalmihii ilaahay jooga meesha waa ka habaarada waa gaar marka odayga walaalayaal iga nasiiyo arrintan ayaan baanaa oo markiisu u arko barnaamijku uu leeyahay hogaaminta baarlamaanka hawl sahlan maaha waxaan u rajaynayaa shaqo wanaagsan caafimaad ilaa haddana wadaya ilaa caawa anaa wadaya of course afrikaanku baawarka ma tego si sahlan weliba hadduu askari yahay waan ku dhegaysaa askarta marka hawsha anaa dhammaynaya way ka dambeeya dhammaadka hawshan
الحمد لله رب العالمين. مدن يا المروين مري هوران waxaan rabaa inaan mahad u celiyo walaalkay Professor Cabdulxali Khaliif Galley iyo dhammaan musharaxiintii kale ee aan sharaf soo ahay. Anigu hadalka aan badinayn waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha ku-meelgaarka inuu sii wado doorashada labada gudoomiye ku-xigeen markii inta ay dhammaato ayaan khudbadayda rasmigaa sii jeedin doonaa. Waa mahadsantihiin.